أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. maalinta oo dhintaa inta janaasada la soo geliya iyo karfanta sariirtii meydka la soo saaraa masaajidka la soo geliya isagoo caafimaad qabuu meelaha lagu qaylo iyo goobaha qaarka fadiilagoo caafimaad qabuu qaxwooyinka shooba iyo maalaa yacni la fadhiyey baktigiisa iyo meydkiisa in masaajidka la keenaa ma ah qof rabbi waxaa loogaa rabnaa maanta inaan raalli ka noqono oon raalli gelino waa qofkee qofkaasi xambaarsaday wixii xumaan taariku salaada salaada ka tegay waayo midka salaada ka seexday waayo waa midka aan salaada hagaajinin taariku salaadka ilaa agtiisa wanaagku malaha taariku salaadku waa malcuun taariku salaadku waa axad alle aka furti taariku salaad ayaa loo soo diraa si taxriiq oo dhib badan xayaatada uga qaada taariku salaadka hal salaad ayuu tukan waayo oo diinta alle ayuu la imaan waaye almujrimiina maa salakakum fii saqar qaaluu lam nakun lilmusalliin ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين وضيح أي راجلة بالنسبة لقدر أوجد لها بطل وحالها من أن يرجل أي ليران كراجنا خارق الصلاة المسلمين ولا لما أحد كان للسجية حدود إنسان لك حدود إنسان لكرفن حدود إنسان تفي عن نبين ورئيا لغجيرة فسن قدك لغطورة لقبتا قد أنت الله قضى للسجيه جعرضا لغشرا اشمد في وناك مرعيبة في وناك إليه هاي مرها مسلمين ولا لما فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا ما توصل أوتي شقا كجبنا صلاة دور يعبرك مغربك إسها للجمعين عرف صلاة العرب الله تسود التهدين يما لبركة أيا إمري صلاة القراءة تارك الصلاة كادتك لمد معها شرط إليه هاي مرها إهيري يرفات أيو كجرا تفشية أيو شيغا حديث يما لبركة الصلاة عمل والبقاء وقبتان لغا أجر يصوات سنيني إلي رواء كافر بريسا لسكئريريا إلا في رئيس أي إسكتعفان أو كل بالحجر أي ملك مران كل ملك جرين أي بيت صومران قبر قال له ريا تارك الصلاة ربها صلاة كتبه إله أسور رجوع نصر صلياك أكبر وأجلي كتبه كهدين إيمال داقة إله يكتبه صلاةها أنفق من كل إسكاج وركس وكع وصوبة ولو أجيب سيرها للتفسير تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسئوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون تبي القرآن وكسر الدنيا تعرف الصلاة إذا احنا نبدأ وفي كتاب كل عمل صلاة استوديو واحد كلا شهر كتاب ثلاثة بكيس اللي احنا نشان وعطي اللي احسن من شدح وفي يلعب دارهان كسر جيسك عان ولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كتاب وعن عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات
فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا. إلهي سبحانه وتعالى salaada oo laga tago waxa uu ka dhigay dunuubta ugu waaweyn oo ay dadku ku helaan ama ay ku mutaystaan cadaabka jahannamo. salaadu waa tiir ka mida tiirarka islaamka, waa camalka alla loogu dhowaado kuwa ugu fadliga badan, waa bacda tawxiid camalada alla loogu dhowaaday u fadli iyo wanaag badan tahay. sidaa darteed ayuu ilaahay salaada waxa uu ka dhigay tiirka diinka. qofkii hoojiya, qofkii ooga oo sidii loogu talagalay ula yimaada ayaa liibaana. qofkii dayaca oo ku cayaara sidii loogu talagalay aan u tukanin ama ka seexda ee taariku salaad noqdaa alla agtiisa qiimo iyo wanaag kuma laha. sidaa darteed mawduuc ku saabsan xukunka iyo qofka taariku salaadka ah, dhibka iyo rafaadka uu leeyahay iyo cadaabkiisaan wax ka tilmaami doonaa. dadkii wali wanaagsanaa ee salaada hagaajin jiray markay aadaanka maqlaan markay carari jireen oo dhanka masaajidka u ordi jiray, aayadaha ilaahay marka lagu aqrinayo khushuuca iyo walbahaarka iyo cabsida iyo iimaanka u kordhinaayey markay adduunka ka tageen. dadkii xumaanta ka ilaaliyey dunida, arlada ilaahay hagaajiyey, ilaahay ku caabuday, nolol fiican ku noolaaday markay adduunka faaruqeen oo ay ka tageen, khuluuf ayaa soo hartay buu dhahay ilaahay. fakhalafa min bacdihim khalfun, khuluuf ayaa timid. waa qola sharta qaliib ku noqotee, waa qola diinta alla diiday, waa qola sidii loogu talagalay adduunka aanu ugu caabudin. fakhalafa min bacdihim khalfun, ugu horayntii hawshay qabteen maxay noqotay? adaacu salaa, salaaday dayaceen buu yiri ilaah subxaana wa tacaala. sahaydii aakhira ayay dayaceen, salaadii 7 sano nabiga inta kor loo saaray loo soo dhiibay dayaceen, shaygii ugu qiimaha badnaa ayay dayaceen. adaacu salaa wattabacu shahawaati, shahawaadkooda ayay raaceen. fasawfa yalqawna gaya, gayi ayay la kulmi doonaan ayuu yiri ilaah subxaana wa tacaala. ilaa man taaba waaamana wacamila saalixan, kii iska gaara oo maantaba tawba keena, ilaahay rumeeya, camal wanaagsan la yimaada oo salaada dib u bilaaba, rabbigiisa xaggiisa uga qoomameeya, mar dambe inaysan u noqonayn goosta maahane. ibnu cabbaas wuxuu yidhi laysa macnaa adaacuuhaa, adaaceeda iyo dayaceeda ma aha bilkulliya oo ay ka tageen, laakiinse wakhtigeeday ka aqireen ayaa loola jeedaa. wakhtigeeday dhaafsiiyeen. doorka markii la adinaayey ooy dadku tukanayeen ayay dukaamooyinkooda fadhiyeen, maqaayadaha iyo baararkay fadhiisteen, goobaha qayilaada ayay fadhiyeen. hadhow ayay damceen inay tukadaan marka wakhtiga dhammaan rabo. sidaa ayuu ku fasiray ibni cabbaas adaacu salaa. maba ahanba kulliya in looga tegay salaada. salaada way tugteen laakiin wakhtigeeday dhaafsiiyeen, wakhtigii loogu talagalay ulama imaanin. dadka noocaasa waayo dadka gayiga iyo waadiga jahannama loo ballan qaaday. dadka xaaladoodu ay sidaa tahay waayo adaacu salaa, salaadaysan kulliya uga tegin laakiin dib ayay u dhigeen. saciid ibnu musayib imaamu taabiciyiin wuxuu dhahay waa inaysan duur ka tukan ilaa inuu casirka yimaado maahane. casirka ma tukanayo ilaa maqribka uu galo, maqribku ma tukanayo ilaa cishaha uu galo, cishuhu ma tugto ilaa fajarka, fajarkana ma tukanayo ilaa tuluuci shams, ilaa qoraxda soo dhalashadeeda laga gaaro. qof allaala qofkii ku dhinta asagoo xaaladaa daa'imay oo aan ka tawba keenin, ilaahay gayi ayuu u ballan qaaday. waa waadi jahannamo, waadi jahannama ku yaalo salkiisu baciid yahay, dhadhankiisu uu khabiif yahay. maca daalika ayuu ilaah yiri fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun. halaag iyo weel wuxuu u sugnaaday dadka salaada sahwiya, dadka salaada tukada, maca daalika salaadooda saahuun u ah, ay gaafiluuna canhaa, salaada xaggeeda ayay gaafiliin ka yihiin. way hawaystaan oo waxay ka dhigaan mid daciif ah. sacd ibn abi waqaas wuxuu yidhi rasuulka ayaa la su'aalay oo la weydiiyey hum can salaatihim saahuun, markaasoo dhahay waa dadka wakhtigeeda kadib dhiga. wakhtigii loogu talagalay ayay ka daahiyaan, musalliin ayaa lagu magacaabay, laakiin tahaawunka iyo dibdhiga ay wakhtigeeda kadib dhigeen ayaa weyn loogu ballan qaaday, waana cadaabkiisa ugu kulul. waadi jahannama waa lagu fasiraa haddii wax yar lagu socodsiin lahaa ee la taabsiin lahaa weynka jibaasha adduunka yaala way ilaali lahaayeen. kulaylka iyo xanuunka uu leeyahay dartii waxaa
waxaa maskan uu u yahay sakan uu u yahay oo degaaya dadka salaada haynay oo waqtigeeda kadib dhigay ilaa inay ka tooba keenaan oo ay ka nadaamoodaan waxyaabihii xumaana ay sameeyeen maahane. taariku salaadku waa malcuun. ummadii maanta taariku salaadnimo ayay u bateen, salaadii ayay ka tageen. hooyadii ayaa taariku salaadad ah oo aan salaada hagaajinayn ama waqtigeeda kadib dhigaysa. howlo adduun iyo howl guri ayaan haayay ku leedahay. owlaadaa igu oynaysaan celinaayo, cudurdaar ma noqonaayo. dumarka iyo raggow dukada sidii laydinkugu talagalay u tukada, waqtigeeda u hagaajiya. ilaah wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu laa tulhikum amwaalukum walaa awlaadukum can dikri illah. war dadka iimaanka lahow maalkiina iyo awlaadiina yay idinka mashquulinin dikriga ilaahay. waman yafcal dalika faulaa'ika hum alkhaasiruun. war qofkiisaa yeela maalkiisa iyo awlaadiisa dikriga alla ay ka mashquuliso, khaasiriinta ayuu ka mid yahay. mufasiriintu waxay dhaheen muraadka bidikri illah loola jeedo waa salaadaha shanta ah. can dikri illaahi can salaati illah. salaada alla xaggeeda yaysan awlaada iyo maalka idinka mashquulinin. qof allaala qofkuu maalkiisa iyo beeciisii shirihiisa maceeshadiisa iyo awlaadiisu ay salaada waqtigeeda uga mashquuliyaan kaana min alkhaasiriin. sidaa darteed ayuu nebigu yidhi shayga ugu horeeya ee qiyaamaha addoonka laga xisaabayo camalkiisa waa salaada. hadday wanaagsanaata faqad aflaxa wa anjax. waa liibaanay waana koray, cadaabka ayuu ka koray, kurbada iyo rafaadka qiyaamaha ayuu ka liibaanay. hadday salaadu nisqaantana faqad khaaba wa khasar. waa hoogay waana liib waana khasaaray ayuu dhahay nebiga. waa hoogay waana khasaaray qofkay salaadiisu wanaagsanaan weyso. ummad fara badan oo qiyaamaha yimaada ayaa inta laysku xerxero oo la jiidaa waxaa lagu tuuraa cadaabka saqara. waa lasu su'aalaa oo waxaa la leeyahay maa salakakum fii saqar. war maxaa saqara idin keenay? maanta maxaa naartaan saqara idin soo geliyey? war camal ayaa jiray haddii la sameeyo aan saqara la imaanin. saqara waa meesha ilaah uu yidhi laa tubqi walaa tadar lawaaxatan lilbashar calayhaa 19. wax ma baaqi yeesho, wax ma hambayso. qofkii lagu riday wada cuntaa, maqaarka iyo jasadkay ka feenataa. maxaa meesha idin keenay? qaaluu lam naku min almusalliin. waxay dhahayaan salaadaan ka tagnay, kuwa salaada tukadaan noqon weynay. taariku salaadiin ayay ahaayeen. war qofka salaada ka tagoy maqal oo dhegayso. salaada oo laga taga saqaraa lagu mutaystaa. su-aasha lagu weydiiyey jawaabteedu waxay noqonaysaa lam naku min almusalliin walam naku nutcimu almiskiin. kuwa maskiinka quudiya ma ahayn. wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin. baatilka ayaan dhex dabaalanaynay, xumaanta ayaan ku dhex jirnay. musalliinta iyo dadka salaada inay dugtaan loogu nimceeyey. safafka ayay taagan yihiin, rabbigood ayay hor taagan yihiin. ayaga iyo qiblada ayuu u dhaxeeyaa. maca daalika way sujuudayaan, way istaagayaan. rabbigood ayay u khushuucsan yihiin. annagana waxaan fadhinay xumaanta meelaha lagu haayo. wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin. meeshaasaan iska dhex dabaalanaynay. waxaan ka sheekeynaynay sheekooyin maa laa yacni ah. qaxwooyinka ayaan fadhinay, qabiilooyinka ayaan kala taageeri jirnay. labada qolo ee daneemiga ayaasaan kala taageeri jirnay. wakunnaa nakhuudu maca alkhaa'idiin. wakunnaa nukadibu biyawmi ddiin. maalinta qiyaama kuwa beeniyey ayaan ahayn xataa ataana alyaqiin. ilaa yaqiintii iyo dhabtii ay noo timid. idan taariku salaadka alla agtiisa qiimo uu ku leeyahay malaha. taariku salaadku waa ilaahay qofuu lacnaday. sharaf ma laha, wanaag uu leeyahay male. bahjo iyo khayr ayaan ka muuqanin. waa axad kaafir ah taariku salaadka. kaafir waayo nebigaa yidhi ahdiga iyo ballanada calaamadahana laku yaqaana baynanaa wa baynahum. gaalada iyo annaga waa salaada. faman tarakahaa qofkii ka tagaana faqad kafara waa uu kufriyey. nebigu wuxuu yidhi bayna alcabdi wa bayna alkufri. addoonka iyo gaalnimadaba waxaa baynkooda ahaatay ka tegidda salaada. hadduuba salaada ka taga wax u kala dhaxeeya ayaan jirin. maca daalika addoonka iyo kufriga waxaa u dhaxaysa waa salaada. qofkii ka tagaa kaafir ah. qofkii ka taga oon tukanaa la cadaaba. qofkii ka tagoo sidii loogu talagalay aan ula imaanin ayaa la naara.
jahannamaa lagu abaalmarinaa. dadka muslimiintow salaada hagaajiya, taariku salaadiin ha noqonina. taariku salaadka qiimo malaha, faa'iida malaha. dhulka uu fadhiya ayaa lacnada, guriga uu ku jiraa lacnadaaya, raashinka uu cunayaa lacnadaaya. sidaa darteed taariku salaadku dhib weyn ayuu markaa leeyahay. sidaa darteed ayuu rasuulku dhahay qofkay salaada casirkaa keliya ka tagto xabidad camalu, camalkiisa waa buray. rasuulku wuxuu dhahay man taraka asalaa, qofkii salaada mutacamid iyo si ula kaca uga taga, faqad bari'at minhu dimmat allah, ilaahay dimmadiisa ayuu beri ka yahay. ballanta alla ayuusan ku jirin, banaanka ayuu ka taagan yahay. waa qof allaala qofkii hal salaad si mutacamida oo kibira markaa uga taga. rasuulku wuxuu dhahay waxaa lay amray an uqaatila annaas, inaan dadka la dagaalamo, inaan dadka laayo xataa yaquuluu laa ilaaha ila allah, ilaa kelimada tawxiidka ay ka qiraan, ilaa ay shirkiga ka tagaan, ilaa ay tawxiidka dhabnimo u aaminaan oo wayuqiimu asalaa, salaada ay ka hagaajiyaan, sikada ay ka gutaan. faidaa facaluu daalika, arrintaa hadday sameeyaan dhiigooda iyo maalkooda ayay iga dhowreen. hadday laa ilaaha ila allah dhahaan, risaalada nebiga ay marxabaysiiyaan oo ay ku daraan, ay naqiraan, salaadaha shanta ah ay ilaaliyaan, sikada ay xoolahooda ka bixiyaan. faidaa facaluu daalika, naftooda iyo maalkooda ayay iga ilaaliyeen. dhiigooda inaan qudaa mamnuuca, xoolahooda in la qaataa mamnuuca. salaada way ku xifdinaysaa, dhiigaaday ilaalinaysaa, maalkaagay ilaalinaysaa, ilaa bixaqihaa, kelimada xaqeeda maahan. wa xisaabuhum cala allah, xisaabtoodana alla dushiisa ayay ahaatay. maca daalika salaada waa in aad loo wanaajiyaa. taariku salaadka muslimiinta walaalama aha, banaankaa layska geeyaa. hadduu dhintaan la dhaqin, hadduu dhintaan la karfanin, hadduu dhintaan si fiican loo duugin, qori ayaa lagu jiidaa, qashin gobkaa lagu tuuraa. culimada gobol ayaa tiri waa la qabtaa, god inta loo qodaa laysaga ridaa, caradaa lagu shubaa. qole ayaa tiri xishmad iyo wanaag male, qiimo iyo wanaag uu leeyahay malaha. muslimiinta walaala lama aha, banaanka ayuu ka joogaa qofka taariku salaadka ah. sidaa darteed ayuu yiri nabiga, sidaa darteed ayuu ilaah yiri subxaana wa tacaala asagoo arrintaa tilmaamaayo, fain taabuu wa aqaamuu asalaa, hadday tawba keenaan, hadday shirkiga ka soo rujuucaan, haddii gaalnimada ay ka tagaan, haddii rabbigood ay aaminaan subxaana wa tacaala. fain taabuu oo wa aqaamuu asalaa, salaada ay hagaajiyaan oo wa aataw zakaa, zakada ay gutaan, fakhalluu sabiilahum, jidkooda u sii daaya. ina allaha gafuurun raxiim, ilaahay waa alla dhaafid badan oo naxariis badani. aayad kale ayuu ku dhahay fain taabuu wa aqaamuu asalaa wa aataw zakaata faikhwaanukum fi ddiin, hadday laa ilaaha ila allah dhahaan, waa hadday shirkiga iyo gaalnimada ka tawba keenaan, waa hadday salaada hagaajiyaan, waa haddii taariku salaadnimada ay ka soo rujuucaan oo ay ka tawba keenaan, oo ay salaadii dib u bilaabaan, oo ay masaajidada camiraan, oo ay xaya cala asalaa, xaya cala alfalaax markay maqlaan ay u tartamaan goobaha diinta iyo masaajidka, sikadana ay bixiyaan. faikhwaanukum fi ddiin, walaalihiin waayo oo diinkay idinkula walaala yihiin, diinkay idinkula walaaloodeen ayuu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. haddaysan salaada tukan walaalahayn ma aha, kii kula dhashay oo naaska kula nuugay ha ahaado. haddii salaada uu ka taga iska dhaqaaji, banaanka ayaa la geynaa. war taariku salaadka lacanab ayaa ku soo degta, agtiisa ha fadhiisanin, agtiisa ha seexanin, gabar ha iska siinin, qiimo iyo wanaag uu leeyaha malehe. rasuulku wuxuu dhahay man xaafada calayha, qofkii salaada ilaaliya kaanat lahu nuuran wa burhaanan wa najaaha, waxay u noqonaysaa nuur iyo iftiin, waxay u noqonaysaa burhaan iyo xujo, waxay u noqonaysaa korid uu maalinta qiyaamo cadaabka iyo rafaadka jira uu uga kor. waman lam yuxaafid, qofkaan xifdinin salaada lam takun lahu nuuran walaa burhaana, nuurna u ahaan mayso, burhaan iyo najaarna ma u noqonaysa maalinta qiyaamo. wa kaana yawma alqiyaama maca fircawn, waxaa lala soo kulmiya fircoon iyo qaaruun iyo haadaan iyo ubay ibnu khalaf. waa axadka salaada ka taga, waa axadkaan salaada xifdinin, waa axadkaan salaada hagaajinin, waa axadkaan salaada sidii loogu talagalay ula imaanin. sidaa darteed ayaa sidaa darteed ayaa cumar wuxuu dhahay nasiib iyo dheef islaamka uu ku leeyahay malaha qofka salaada dayaca. culimada gobolka
mida waxay dhaheen taariku salaadka afartaa qofood ayaa lala soo kulmiya. sababtu waxay tahay wuu mashquulay. salaada qofkii ku mashquula oo meelkiisa uga mashquula, mulkigiisa iyo wasaaradiisa uga mashquula iyo tijaaradiisa, qofka noocaas ah afartaasi ayaa lala soo kulmina. qofku haddii uu kaga mashquulo tijaaradiisa, qofku haddii uu meelkiisa kaga mashquulo qaaruun ayaa lala soo kulmina. haddii mulkigiisa uu kaga mashquulo fircoon micigiisa ayaa lala soo kulmiya. haddii wasaaradnimadiisa uu kaga mashquulana haamaan ayaa lala soo kulmiya. haddii tijaaro uu ku mashquulo xaya cala salaadaa la dhaha, ganacsiguu ku jiraa, dibadda ayuu ku maqan yahay, badeeca ayuu raadinaa, beriis iyo badar uu geli lahaa. dadkiina waxaa la dhahaa xaya cala asalaa, war salaada u imaada, xaya cala alfalaax, liibaanta u imaada. meel aan liibaan jirin ayuu liibaan ka raadinaa. xoolo adduun ayuu ku mashquulaa. xoolaha adduunka ah waxay kuu anfacayaan malaha. xoolaha adduunkaa qabrigiisan kula gelin. xoolaha adduunkaa qiyaamaysan cadaabka kaa ilaalinin. xoolaha adduunka salaada ha uga mashquulin. sidaa darteed nuurku wuxuu ku jiraa guryaha alle rabbi uu idmay in lagu xuso gudihiisa, magaciisa lagula tasbiixsado subax iyo galabba. yaa ku dhex jira rijaalun laa tulhiihim, rag aysan ka mashquulinin tijaaratun walaa baycun can dikri illah, tijaara iyo beec ilaahay dikrigiisa, wa iqaami asalaa wa iitaa'i zakaa. salaaday hagaajiyaan, salaaday u arkeen sahayda ugu qiimaha badan inay tahay, wax saqaro iyo zamhariira looga badbaada inay salaada tahay, wax saciiro iyo saqaro looga fakada inay tahay, waxa jannada lagula gala inay salaada tahay. maca daalika beeca iyo tijaaradaysan ku mashquulin, salaada ayay hagaajiyeen, sekada ayay bixiyeen. yakhaafuuna yawman, maalin bay ka cabsanayaan tataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar, indhaha iyo qalbigaba uu gadgadoomaayo. maalin aan maanta ahayn ayaa jira, indhuhu way gadgadoomayaan cabsi daraaddeed, qalbigu waa gadgadoomayaa cabsi daraaddeed. maca daalika maalintaasay ka cabsanayaan, indhaha iyo quluubta ay markaa ruxanayaan. maalintaa maalin caadiya ma aha, maalintaa waa maalin dhib badan, maalintaa waa maalin cajiib badan. sidaa darteed ayaa rabbi asagoo naga hadlaaya ama uu nooga tilmaamaya maalintaa ayuu yidhi alyawma tujzaa kullu nafsin bimaa kasabat laa dulma alyawm ina allaha sariicu alxisaab waandirhum yawma alaazifa. waxaad uga digtaa maalinta dhow idi lquluubu lada alxanaajir, quluubtu kalxamaha ayay imaanayaan. kaadimiina maa lilظaalimiina min xamiimin walaa shafiicin yutaac, ayadoo caburan dhaalimiinta xamiid iyo safeec malaha. sidaa darteed maalintaa cabsi ay ka cabsanayaan darteed ayaysan tijaarada iyo beeca ugu mashquulaynin. salaaday hagaajiyaan, sekada ayay gutaan ayuu yidhi ilaah. waxay ka cabsanayaan maalin yataqallabu fiihi alquluubu waalabsaar, indhaha iyo qalbiyaalkaba ay gadgadoomayaan. tijaaro iyo beec aysan ku mashquulaynin. walaalayaal xaaladdu waa sidaa. dadka muslimiintana waa inay aad iyo aad u dadaalaan. man taraka salaata maktuub, qofkii salaad waajiba kibir uga taga, dimada alle ayuu ka baxsan yahay, banaankana uu ka joogaa. cumar ibn khitaab ilaaha ka raadi noqdee wuxuu dhahay, nin ayaa rasuulka u yimid oo yidhi yaa rasuula allah, ayu lacmaali axabu ila allahi tacaala fi lislaam, camalkee ilaa xaggiisa loogu jecel yahay islaamka dhexdiisa in lagu qabto? qaala asalaatu liwaqtihaa, salaad oo waqtigeeda lagu tukada buu dhahay nebiga. waman taraka asalaa, qofkii salaada ka tagaana falaa diina lah, wax diina uu leeyahay malaha. salaadu waa ciyaadka iyo tiirka ay diinku ku taagan tahay. dadka muslimiinta ah ayuu ilaahay nuur iyo wanaag uga dhigaa. dadkii maanta salaaday bayaceen, dadkii maanta salaaday ka tageen, adduunkay ku mashquuleen, xoolahooday ku mashquuleen, sheeka maalaa yacniya ayay uga tageen. fiiri cumar ibn khitaab markii la buray ayaa loo yidhi assalaatu ya amiira almu'miniin, waa dhaabac oo dhaabacaa ka socda. sidaa darteed diin ayaa ka socda. waxaa la dhahay amiirkii mu'miniintaw salaada? qaala nacam. waayahay buu dhahay, maxaa yeelay xaq kuma laha axad salaada ka tegey oo salaada dayacay islaamka. waa tukaday, ilaahay ha ka raadi noqdee, asagoo dhaariciisa uu ka daadanayo dhiig. maca daalika ayaa loogu talagalay dadka muslimiinta ah saasoo kale inay yeelaan. amba ma kici karaa taalla maanta, madaxaa i xanuunayaa taalla maanta, waa mashquulsanahay ayaa taalla maanta. waxaad ku mashquulaysaa maxay tahay? maalin ayuu nebiga asagoo tukanaya nin salaamay, nebiga salaanta kama radinin. markuu dhammeeyuu ka qaaday, shuqul ayaan ku jiray buu dhahay. ayadaa shuqul ahoo lagu mashquulaa, ciidaa loogu talagalay ifka iyo ciriiriga inaad uga baxdo. cumar waa dhaabac meesha ayuu yaalaa, waxaa lagu duray miji. salaadiyaa la gaaraa la yidhi caawahay buu dhahay waa tukanay
tukanayna madhin anigu dhaabacaan ahay waa tukaday ilaaha ka raadi noqdee jurxigiisa iyo dhaawiciisa oo yasiilu daman dhiig markaa uu ka qubanaayo ninka lagu magacaabo cabdullaahi ibnu shaqiiq attaabici wuxuu dhahay saxaabada nebiga uma arkin shay camalada ka mid ah oo kategitaankiisa ay gaalnimo u arkeen ilaa salaada maahane salaada ayay u arkeen inay gaalnimo tahay waxaan arkaynay dhaheen saxaabada axad anaga naga mid ah oo xanuunsan isagoo lasoo garbaynaayo lugihiisa ay dhulka kujiidaayaan aan kari karin inuu lugaha ku istaago maca daalika safka salaada lasoo istaajinayo saasaan markaa arkaynay maca daalika dadka muslimiinta dadaala ilaahiinana ka cabsada cali bni abi aalib naag ayaa la su-aalay aan tukanaynin markaasuu dhahay qof allaala qofkii aan tukanin waa kaafir cabdullaahi bni mascuud wuxuu dhahay qofkii aan tukanin wax diin ah ee uu leeyahay ma jiro sidaa darteed waxaad fahmaysaa maanta inaan diinka banaanka ka nahay salaadii waa la dayacay oo waa laga tegey shabaabku badankoodu ma tukadaan oo banoonigay taageeraan shabaabku badankoodu ma tukadaan oo qaxwooyinkay fadhiyaan shabaabku badankoodu ma tukadaan oo sheeka maalaa yacni ayay meel la fadhiyaan intii dukatayna habkii loogu talaгаlaysan u dukanaynin maca daalika ilaa in yar oo rabbi u naxariistay maahane cabdullaahi bni cabbaas wuxuu dhahay qofkii hal salaad ka taga si mutacamida oo kibra uga taga ilaahay ayuu la kulma wahuwa calayhi khadbaan ilaahay oo asaga dushiisa u caraysan taariku salaadka ilaahayaa u carooday qof rabbi u caroodaan rabnaa maanta inaan raalli ka noqono oon raalli gelino salaadii ayay dartii ka tagay saaxiibo iyo walaalaan ka dhiganay qofka salaada tukada walaal ka dhiga sida aayaddu ay tilmaantay fain taabuu wa aqaamuu asalaa waatawu zakaa faikhwaanukum fi ddiin walaalihiin waayo diinkay idinkula walaala yihiin waa axadkii laa ilaaha ila allah dhaha waa qofkii salaada hagaajiye oo zakada bixiyaa walaalkiin ah ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala maanta waxaad arkaysaa salaadii ma tukanaayo diinka ilaahay ma raacaayo maalinta oo dhintaa inta janaasada lasoo geliya iyo karfanta sariirtii meydka lasoo saaraa masaajidka lasoo geliya isagoo caafimaad qabuu naagahana tumashadooda raacay asagoo caafimaad ahu qabuu meelaha lagu qaylo iyo goobaha qaadka fadhiistay asagoo caafimaad qabuu qaxwooyinka sheeba iyo maalaa yacni la fadhiyey xaya cala asalaa xaya cala alfalaax oo la dhahayo ayuu dhibtuu dhigi waayey rabbi dartii ayuu u soo istaagi waayey maalinta noocaasa ayuu masaajidka soo geli waaye baktigiisa iyo meydkiisa in masaajidka la keenaa ma aha waxaad arkaysaa dadku xaaladaa inay aad ugu dadaalayaan taariku salaadka janaasa laguma tukado taariku salaadka qiimo iyo faa'iida malaha taariku salaadka saan soo tilmaamay qubuuraha muslimiinta laguma duugo waayo xaq iyo dheef uu ku leeyahay malaha laakiin maanta qof walba waxaad arkaysaa taariku salaad kasta iyo daalim walba inta lasoo dhaqo casar iyo waxyaaba lasoo geliyo masaajidka lasoo gelina xaaladayay sidaa noqonin ilaahay ha laga cabsado oo diinka ha lagu dadaalo salaadana waa in aad iyo aad loo wanaajiyaa rasuulku wuxuu dhahay qofkii axadkii dukaday waxay dhahaysaa ilaahay ha ku xafiro saatii xafiday war rabbi ha ku dhowro saatii dhowrtay war ilaahay ha ku wanaajiyo saatii wanaajisay ilaa maalinta qiyaama laga gaaro ducay kuu hayn haddii addoonku uu salaad dukado tilmaamay qubuuraha muslimiinta laguma duugo waayo xaq iyo dheef uu ku leeyahay malaha laakiin maanta qof walba waxaad arkaysaa taariku salaad kasta iyo daalim walba inta lasoo dhaqo casar iyo waxyaaba lasoo geliyo masaajidka lasoo gelina xaaladayay sidaa noqonin ilaahay ha laga cabsado oo diinka ha lagu dadaalo salaadana waa in aad iyo aad loo wanaajiyaa rasuulku wuxuu dhahay qofkii ilaahay la kulma asagoo salaada dayacay oo ku cayaaray ilaahay u aaba yeeli maayo mana u fiiriyo shay kaloo camaladiisa markaa ka mid ah haddii mudayac uu ku yahay mid salaada markaa ku cayaaray dadka muslimiinta ah waa inay xaalada aad ula socdaan dembi ka weyn ma jiro ayaa la yidhi shirkiga iyo salaada oo waktigeeda laga afiro iyo qof mu'min ah oo xaq la-aan markaa loo dilo ibraahiim annuqaci wuxuu yidhi qofkii salaada ka tagaa waa kaafir maca daalika dadka muslimiinta ah oo aad u dadaala waa in qofka khayrka iyo wanaaga uu ku dadaalo qofka waa inuu rabbigii ka cabsado rabbigiina ateeca rasuulku wuxuu dhahay hadduu addoonku salaad dukada waktigeeda awalkeeda samada ayay koraysaa nuur ayay u noqonaysaa ilaa raxmaanka carshigiisa ay tagto istikfaar ayay u weydiinaysaa axadkii dukaday waxay dhahaysaa ilaahay ha ku xafido saatii xafiday war rabbi ha ku dhowro saatii dhowrtay war ilaahay ha ku wanaajiyo saatii wanaajisay ilaa maalinta qiyaama laga gaaro ducay kuu hayn haddii addoonku uu salaad dukado waktigeeda wakti aan ahayn uu ku dukado uu dib u dhigo ou dayaco maantoo dhan buu qayilaayey maqribka marka la gaaro ayuu luqluqday
salaada ayuu u istaagay gurigiisa iyo goobtii uu ku qaylay agteeda ayuu sali dhigtay tukaha biyaha cadaya ama dhiiga oo kale ayuu naqro iyo hal asdhufasho wejiga uu saa afar mar dhulka u dhigay xaaladiisu hadday sidaa noqoto samada ayay aadaysaa ayadoo madow markay cirka gaartaa lasoo duubaa sida marada baanida ah ee dhammaatay duugooda loo soo duubo oo kale wejiga ayaa looga soo tuuraa axadkii dukaday waxay dhahaysaa allah ku dayaco saas ii dayacday oo kale waad ugu dheeshee allah kugu dheelo ilaa maalinta qiyaamay xabaad iyo inkaar u haysaa maca daalika salaada hagaajiya taariku salaad yaan la noqonin rabbi khayr iyo wanaag hala weydiisto waad ujeedaa kii salaada ka tegi daaye kii wakhtiyaalkeeda ka jibsiga maanta lagu dhegan yahay rasuulku wuxuu dhahay 3 qofoodba ilaahay salaadooda ma aqbalo qof oon iimaan ku noqday wahum lahu kaarihuun ayaguna ay nacayaan qof allaala qofkii addoonsaday qof muxarar ah oo markaa la xoreeyey iyo qof salaada dibaad iyo gadaal ula yimid waxaa laga wadaa marka wakhtigeedii dhammaaday ayuu salaadii markaa la yimid sidoo kale ayuu nebigu dhahay qofkii 2 salaadood jamciyo cudur la'aan wuxuu la yimid baaban cadiiman min abwaabi alkabaa'ir albaab weyn oo albaabaha kabaa'irta ka mid ah maantoo dhan howl iyo shaqaan ku jirnaa salaada duur iyo casirka maqribka iyo cishaha la jamcinaa tirse ayaa la leeyahay ilaah subxaana wa tacaala xaaladdu sidaa ma aha dadku waa inay rabbigood baryaan si uu tawfiiqda u waafajiyo uuna ugu saacido salaada wanaajinteeda inay ilaahay waa jawaad kariim ah arxamu araaximiin ah waxaad arkaysaa salaada inay ihtimaam weyn leedahay inuu rasuulku yidhi war ilmihiina salaada amra marka ay 7 sano gaaraan 10 sano markay gaaraan ku garaaca awlaadiina amra salaada ayagoo abnaa 7 jira ah 10 sano ku garaaca jiifkana ku kala geegeeya sidaa darteed waxaan ka fahmaynaa xadiiska iqlaaska uu weyn yahay ciquubka uu leeyahay qofku haddii uu ka taga salaada waa haddii uu qaangaaree maca daalika salaada aad iyo aad ayaa loogu talagalay inay dadku wanaajiyaan inay salaada ilaaliyaan taariku salaadka ilaah agtiisa wanaag kuma laha naa kuma xiranto khayr iyo wanaag ma laha wejigiisa ma laha bahjadii calaamada dadka saalixiinta ah taariku salaadku waa malcuun taariku salaadku waa axad alle ka furtay oo diinka aysa aan haysanin waa mid ku khasaaray adduunka iyo aakhirada culimadu aad iyo aad ayay uga hadleen xukunka uu leeyahay taariku salaadka imaamu maalik iyo imaamu shaafici axmed 3duba waxay dhaheen taariku salaadka waa la dilaa xadkiisuna waa darban bisayfi iyo fii raqabatin waa qoortiisa oo lagu gooyo seef intaa ka gadaal ayay isu khilaafeen magaalnimaa loo dilaa masamaya qoortiisaa la gooyin meydkiisaa yaala waxaa murunka taagan yahay magaalaa mase waa maya waa fiiri axadka taariku salaadka dhibka uu leeyahay haddii uu ka tago cudur la'aan salaada ilaa waktigeedu ay ka baaba'do waa kaafir ayaa la dhahay ibraahim annuqaci أبو أيوب عبد الله بن مبارك أحمد بن حنبل إسحاق بن الرهوي كافر وحي نعد بالسنين أو قول في النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة على مضى من جد بل مضى إلمامها لكك ليكان أمج يقال وصلاة فمن تركها فقد كفر قصي كتغا وكافر وحمر جنين كلام نجره تارك الصلاة أداتها وكافر أما هذا كافر ليدها أو إسلام قطة أداتها إيه أداتها إلا رجال أياتها تارك الصلاة وإنه سيدا أجاده ألا أتيس إنه سنشرف يقيم قلهين بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رجل كئيس قال لماذا وحاقود حيث الصلاة والله قتك كنية تلك مسلمين توجدالا هو يوجد ما أنت متكذان وتارك الصلاة صلاة صبحيد متكتو أنا قاحل إنكاذي ودليس أي دليل ستو دورتي متكتو وحي وأندعونيسا إنه هولا أدونك كحيسو إنه يقول هوله سكو مشغول سنتهي والحالة sidaa ma aha haddii waktiga la gaaro hawl kastoo laha ayaa la dhigaa salaadaa loo soo degdegaa salaada ayaa la ilaaliyaa caaisha waxay tiri nebiga markuu guriga joogo waana saacidaayey intaa ka gada waxaad u malaysaa markuu aadaanka maqlo sidii qof aana aqoon oo kale waa degdegaa waana baxa wuxuu aadayaa meelaha ilaah subxaana wa tacaala looga dhawaaqayo oo la dhahayo salaada u imaada liibaanta u imaada meesha ayuu markaa aadaa haddaba dadka muslimiinta ahow aad iyo aad u dadaala dhibkana haysta fiiriya waktiyada dawaamada shaqada marka la gaaro waktiyaalka madrasooyinka aad iyo aad ayaa qofka loo toosiya waa la kiciya salaada subxeed looma kaco waxaad arkaysaa qofka dawaamkiisa saacad oo kale ay tahay ama hal saac oo kale uu yahay inuu saacadda hal saac oo 5 dhimad uu ku buuxsanaayo weliba qof allaala qofka xaaladiisu ay sidaa tahay waa axad kaafir ah oo salaada subxeed ay sidaa markaa uga tagtay ilmaha iyo aabbayaalka uma kacaan salaada fajar laakiin saacadda camalka ayay kacaan wakti mutaakhirnima ayay kacaan kuwa ugu fiican ayaa gadaal ka tukanaya
kale camalkooda ayay aadaan. war howlaha adduunka iyo madrasadaa salaada laga fadilay. war salaadii oo dhibkii dhawaa loo soo maray, habeenkii nebiga loo soo dhiibay, israa'iil micraajka lagu soo farad yeelay, 7 samaawaad korkooda la geeya, maanta la dayacoo lagu cayaaray. saxaydii islaamkaa maanta la dayacay oo lagu cayaaray. maca daalika waxaad arkaysaa ilmaha khaasatan kuwa iskoolka dhigta waxaa loo baahanyay waalidku inay xoog weyn saaraan, inay salaada aad ugu kiciyaan. marka xilliga salaada la gaaro uu hurdaayo daa-a lagu leeyahay kicin, madax xanuunuu qabaa ama madaxa xanuunaaye. madarasada markuu u kici waayo biyaa lagu shubaa, waa la istaajiyaa. xaalada noocaasa looma baahna. waalidow halliga aad leedihiin adduun yuusan noqonin. waalidow halligiina aakhira ha noqdo. salaada ku edbiya, salaada ku tarbiyeeya. nebi ismaaciil ayuu ilaah amaanay, wadkur fi lkitaabi ismaaciil inahu kaana saadiqa alwacdi wa kaana rasuula nabiya. muxuu ahaa mid ehelkiisa iyo ehelkiisa salaada amra. saasuu ahaa nebi ismaaciil calayhi asalaam. wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati waazaka. salaada iyo sakada ayuu ehelkiisa amri jiray. wa kaana cinda rabbihi mardiya. rabbigii agtiisana mid looga raali yahay ayuu markaa ahaa. raali ayaa looga ahaa ilaahay xaggiisa. maxaa looga noqday ilmaha madrasada iyo shaqada keliya uma kicinin. salaada ayuu amro, diinka alla ayuu ku guubaabiyey, rabbigiis ayuu ku xiray, salaada ayuu ku tarbiyeeyey. wa kaana ya'muru ahlahu biasalaati waazaka. rasuulka ayaa lagu yidhi waamur ahlaka bisalaa. ehelkaaga salaada amar wastabir calayha. wastabiruu xoog ugu dulqaado. laa nas'aluka risqan naxnu narzuquk. anagaa ku arsukayne. war salaadeeda arsaaqada ku timaadaa. salaada ayaa liibaanta iyo falaaxa uu ku yimaadaa. salaada ayaa khayrka iyo wanaagga lagu gaaraa. saasaa qofka loogu talagalay inuu khayrka iyo wanaagga u sameeyo. ilaahay diintiisa ayuu inuu ugu dhaqmo. habkaasuu ilaah u amray subxaana wa tacaala. nin ayaa rasuulka u yimida fiiri salaada wanaagga ay leedahay. rasuulka ilaahayow iyo waran buu yidhi haddii aan kelimada tawxiidka qiro, haddii salaadaha shanta ah ee waajibka aan ilaaliyo, oon xifdiyo sakadana aan bixiyo, xalaasha aan xalaaliyo, xaaraamtana aan ka tago, maxaa ii sugnaaday? waxaad micigooda noqonaysaa buu dhahay nebiga, maca aladiina ancama allahu calayhim, kuwa ilaah uu u nimceeyey oo min annabiyiina waasidiiqiina waashuhadaa iyo wasaalixiin ah. salaada saasaa loo dhexgeliya. maca daalika dadka waa inay aad iyo aad u dadaalaan qofkii xifdiya salaadaha waajibkaa. rabbi wuxuu ku karaameeyaa 5 karaamaad oo aad iyo aad u waaweyn. 5 karaamaad ayuu siiyaa. midda koowaad waxaa laga rafacaa oo laga kor qaadaa oo rabbi uu ka ilaaliyaa dayqa ciriiriga cayska iyo cadaabka qabriga. waxaa laga ilaaliyaa dayqa iyo ciriiriga adduunka waa xagga noloshee. qabriga ciriirigiisaa laga ilaaliyaa. waa midda labaad. midda saddexaad ayuu rabbi kitaabkiisa gacanta midigtaa ka siiyaa. midda afaraad siraadka ayaa la gudbisiiyaa sidii birta ama hilaaca oo kale. jannadana ilaahay wuu geliyaa subxaana wa tacaala. waata ilaahay uu tilmaamay dadka salaada ku khushuuca, salaadana xifdiya oo ilaaliya. ulaa'ika fii jannaatin mukramuun. jannooyin dhexdooda ayay yimid ayagoo la karaameynaayo. ulaa'ika hum alwaarisuun aladiina yarisuuna alfirdawsa hum fiiha khaaliduun. way dhaxlaayaan oo jannadii firdowsay dhaxlaayaan, wayna ku dhex waaraayaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. 5 karaamo ee qiimaha iyo wanaagga lehaa la siinaa. markaad salaada xifdiso, markaad salaada hagaajiso, cayskaaga aad iyo aad ayaa loo wanaajinaa. salaadu waxay ka mid tahay arrimooyinka khayrka iyo wanaagga lagu helo. sidaa darteed nebiga dhib kasta oo ku dhacdaadara ila salaa, salaada ayuu u degdegi jiray. sixiroolaha u degdegnaa. nebiga markii mashaakil ku dhaco salaada xaggeeda ayuu u fafici jiray. anaga qubuurta xaggooda ayaan u degdegnaa. mar allaala markii riix adag ay dhacdo ama qoraxdu ay madoobaata masaajidkay u degdegaayey. weliba maalin maalmaha ka mid ah asagoo maradiisa jiidaaya ayuu dhanka masaajidka aaday, asagoo ka cabsanaya inay cadaab ama noqoto saacadii qiyaamo. rasuulka saasuu salaada ugu degdegaayey. qubuuraha loo degdegaa. culammadii sayniskaa sheegtaa la leeyahay inay qoraxdu madoobaanayso. horay ayaa loo tilmaamay xaalada gaflada iyo halmaankaa lagu dhex sugan yahay. qof kasoo dhex baxaayaa ma jiro. waa ilaahay arrin uu rabo inuu dadka ku taqwiifiyo ee uu ku cabsigeliyo. wamaa nursilu bilaayaati ilaa takhwiifa. aayadaha ma soo dirno waa dhulgariirka, waa qorax madoobaadka, waa bisha oo madoobaatay ilaa takhwiif waayo ayuu yidhi ilaah. addoommadaa la rabaa in lagu cabsigeliyo si ay markaa u cabsadaan oo ay u soo degdegaan. asmaa binti abibakar ayaa salaad u istaagtay kusuuf ah oo qorax madoobaad ah.
ilaa mirdaboolka uu ka daboolmay oo biyo lagu shubay xaaladeeda ayay sidaa ahayd. asma ayaa tahay caaisha ayaa taagnay, maca daalika salaadaysaa ugu degdegaayeen. rasuulku wuxuuna amray ayay tiri haddii qoraxdu ay sidaa u madoobaato inaan salaadaha u degdegno, inaan argagaxno, inaan cidfaya iyo xoraynta badino ilaa xaggeena nala ka faydo. inan waa dembi ay dadku galeen. maca daalika maalinta ciriiriga adduunkaa laga qaadaa, salaadaa qofka looga rafacaa. maca daalika salaadiisa kor ayay aadaysaa. risqiga annaga dhulkan ka raadina, laakiin dhulka ma jiro. wafi samaa'i risqukum wamaa tuucaduun, samada ayay jirtaa buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waxaa naga maqan yaqiin ah camal saalixa in wax lagu helo. xaalada noocaasaa dadkii ka dhuntay. goormeen wax helaa haddaan salaada aado? goormeen wax helaa haddii aan xiro dukaankuu ku leeyahay? kista yar ee dukaanka uu xiraayo oo rabbi hor istaagan yahay ayuu u maleeyaa adduun badan inuu uga fakanaayo. axadka noocaasa qiimo iyo wanaag ma laha. idan qofka salaada xifdiya ceyska iyo noloshaa loo waasixiyaa. qabriga cadaabkiisaa laga ilaaliyaa. kitaabkiisaa gacanta midigtaa laga siiyaa. siraadka ayaa si wanaagsan loo marsiiyaa. jannada ayuu ilaahay ku arsuqaa uuna geliyaa subxaana wa tacaala. xaaladaa markuu sameeyo qofka iimaanka leh, kitaabkiisa gacanta midigtaa looga dhiibaa. qof kastoo kitaabkiisa gacanta midigtaa laga siiyo, alla agtiisa wanaag ayuu ku gaaraa, khayr iyo sharaf ayuu ku leeyahay. maca daalika ayuu yidhi rabbi asagoo tilmaamaayo xaalada noocaas ah, yawma nadcuu kulla unaasin biiimaanihim. waa maalin dadkoo dhan aan ugu wacayna mala iimaanyaalkooda iyo waxyaabihii ay soo sameeyeen. faman uutiya kitaabahu biyamiini, qofkii kitaabkiisa gacanta midigtaa laga siiyo, fa ulaa'ika yaqra'uuna kitaabahum, kitaabkooday aqrinayaan walaa yudlamuuna fasiila, fasiil laga dulminayaa ma jira. waman kaana fii haadihi acmaa, qofkii adduunka ku arag la fahwa fi laakhirati acmaa wa adallu sabiila, aakhirana waa ku arag la'yahay. maca daalika xagga jidkana asagaa markaa ugu xun. yaa soo haray qofkii salaada hawinta oo daciifsada oo sidii loogu talagalay aan ula imaanin, asagana 15 ciqaabood ayaa lagu ciqaabaa. 5 adduunkaa lagula ciqaabaa, 3 waa marka uu dhimanaayo, 3 qabriga ayaa dhexdiisa lagula ciqaabaa, 3na marka uu qubuuraha ka soo baxayo adduunka. 5 waxyaabood oo lagula ciqaabayo. midda koobaad barakada ayaa cimrigiisa laga tirtiraa. axadku taariku salaadkaa dadka lamid ma aha, sharaf uu leeyahay malaha. ciriiri iyo rafaad ayuu ku jiraa, qafas iyo dhib ayuu sheegaa habeen iyo maalin. taariku salaadka lacanad allah ku soo degta habeen iyo maalin. sidaa darteed ayaa barakada waxaa laga tirtiraa cimrigiisa. midda labaad waxaa laga tirtiraa calaamadu ay leeyihiin dadka saalixiinta ah wejigiisa. dadka iimaanka leh oo rabbigood rumeeyey, tacrifahum bisiimaahum, calaamadaha ay leeyihiin ayaa lagu aqoonsadaa. siimaahum fii wujuuhihim min athari sujuud, salaada raadkeeda ayaa ka muuqata buu dhahay ilaah subxaana wa tacaala. waa u iftiimaysaa qiyaamaha haddii la tago. ninkan calaamadaha dadka saalixiinta ayaa ka maqan, wejigiisa ayaa laga tirtiray. midda saddexaad camal walba ee uu qabtaan laga ajir iyo tawaab siinaynin. inan waa axad kaafir ah. dadka kaafiriinta camalada ay qabanayaan karamaadin ishtadad, waa dambas la firdhiyey maalin caasif ah oo dabeed daran ay jirto oo kaley la mid tahay. ilaah wuxuu kaloo yidhi kaafiriinta camalkooda ka saraabin biqiica, waase dhalanteed iyo dhaandaragaale oo kale oo meel sibsib ah ama bannaan markaa ka muuqda. waa werwerka qoraxna meelay ku dhacday oo qofka ooman uu biyo u maleeyo ilaa uu yimaadaan lam yajidhu shay-a, uusan waxba markaa ka helaynin. wuxuu la mid yahay ka dulumaatin fii baxrin lujjiyin yabshaahu min, oo mataqaana uu daboolay mawj min fawqihi mawj min fawqihi saxaab, dulumaatun bacduhaa fawqa bacd, waa mugdiyaalo qaarkood qaar kale uu saaran yahay. idaa akhraja yadahu lam yakad yaraaha, hadduu gacantiisa bannaan ka dhigo inuu arka sigi maayo. qofkuusan ilaahay nuur u yeeli, famaa lahu min nuur. asalaatu nuur, salaaduna waa nuur. nuurkii ayaa ka maqan, cimrigiisaa barakada laga tirtiray. qiimo iyo wanaag uu leeyahay markaa male. camal kasta uu sameeyaan laga ajir iyo sawaab siinayni. mid afaraad, kor loogu qaadi maayo ducadiisa samada. ilayhi yascadu lkalimu ayib waalcamalu asaalixu yarfacuh. maca daalika camalkiisaan kor loo qaadayn, ducadiisaan kor loo qaadaynin. haybad iyo sharaf uu leeyahay ineen ma lehe. midda shanaad, xad iyo nasiibkuma laha ducada dadka saalixiinta ah. assalaamun calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin, waa dadka masaajidada ku jira, waa dadka jiran oo guryahooda iyagoo jiifa dukanaya si fiican ayay u gaaraysaa. qabiil hebel ayaa raayay, qabiil hebel ayaa badiyoo laga badiyey, ayuu qaxwooyinka la fadhiyaa. wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin ma soo gaarayso mana ugu imaanayso ilaa salaada uu wanaajiyo. cadaabyaalka asiibaaya marka ninka uu dhimanaayo waxay tahay asagoo daliil ah
oo dulaysan oo sharaf lahayn ayuu dhintaa. taariku salaadka markuu dhimanayo dhimashadaa lagu adkeeya, cadaab xanuun badan ayaa lagu cadaabaa. malaa'ig ayaa loo soo diraa si saxariir oo dhib badan xayaatada uga qaada. hal salaad ayuu tukan waaye oo diinta alle ayuu la imaan waaye ilaa inuu macaasi iyo xumaan sameeyo maahane. maca daalika ayaa axadka marka uu dhimanayo asagoo daliila ayuu dhintaa. mida kale asagoo jaayaca oo baahan ayuu dhintaa, asagoo ooman ayuu dhintaa. xataa haddii la cabsiiyo biyaha badda oo dhan waxay u tarayaan markaa malaha. mida asiiraysa qabriga inta uu ku jiro qabrigiisaa laysku xiriiriyaa ilaa feerihiisa ay iska dhaafaan oo kuwii bidixda jiray ay midigta maraan, kuwii midigta jirayna ay bidixda soo maraan. qabrigaa lagu huriyaa taariku salaad. gabdhaha salaada ka tegoo ilaah u soo rujuuca. musalsalyaalka ag fadhiyo cajalooyinka filimka habeen iyo maalin daarta taa ilaahya ka dhigtoo salaadaha aan u qumin una istaagi. war ka soo kaca oo sawba keena waa u jeedii feeraha laisdaafsiinaa. qabriga inta lagu jiro midigtaa bidixda maraysa, midigtana bidixday soo maraysaa. qabrigaa laysku hurinaa oo cadaabsid maayo oo ololaya ayaa dhexdiisa ahaaday. sidaa darteed ayaa sidaa loogu sallidaa. maalin maalmaha ka mida ayaa waxaa dhacday ayaa la yidhi wiil ayaa walaashii dhimatay. mar allaala markii la soo aasuu qabriga uga soo tegey kiis uu maal ugu jiro. ma uusan ogeen qof daraynayn, qof dareemayna male ilaa laga soo insiraafoo laga soo gadoomay qabrigeeda. ka gadaal ayuu wiilkii xasuustoo qabrigiibuu u noqdaa la yidhi. qabrigii ayuu faagay. mar allaala markuu fatasho qabrigii qoray ka gadaal ayaa wuxuu helay qabrigii qabrigii oo dhanaasinaarkaoo kaleoo muufada aad ku dariisa u huraayey. carada ayuu ku rogay uu ku celiyey. waa soo ordoo hooyadiis ayuu u soo noqday baakiyan asagoo oynaaye xasiin ahoo tiiraayeesan. wuxuu dhaha yaa ummaa, hooyay waxaad iiga warantaa walaashay xaaladeeda, maxay samayn jirtay hooyo? hooyadii waxay ku tiri maxaad ii su-aashay? hooyay qabrigeedaan arkay buu dhahay oo dabka ololaaya oo naar ku shidmaayo. way oysay ayadana waxay tiri wiilkeeyo walaashaa waxay ahayd tatahaawana bisalaa. salaada ayay daciifsan jirtay, weliba bilkulliya ugama tegine waktigeeda ayay kadib dhigi jirtay. sidaa ayay noqonaysaa dadka salaada waktigeeda kadib dhigaaya say xaaladooda noqonaysaa. man laa yusalli, qofkaan dukanin. gabadhiisaa badda ahayd oo xalay maqribkii cajalada usoo ijaaratay salaada subxeed ilaa laga dugto dadka ag fadhisay. seexatoo duhur iyo casir iyo maqrib, haddana maqribkii kala soo kacdoo sidaa yeeshay say xaaladeedu noqonaysaa. siisaa yeeshaa xaaladeeda sidaa tahay. qabriga ayaa lagu horciyaa oo lagu ololiyaa oo lagu shidaa in allaala inta ay meesha markaa ku jiraan. midda saddexaad waxay tahay qabriga waxaa lagu salidaa socbaan iyo adeeso kunihu ay ka dhaceen suntasay ugu badatay darteed ejiyaalkiisa iyo waxyaabaha uu ku dhibaataynaayo ay aad iyo aad u adag yihiin. aniga adeesaan ahay buu leeyahay. suuraddiisu waa suuradda racdiga oo kale ama mtaqaanaa gubaca. rabbigay ayaa isoo amray saad u dayacday salaada inaan kuu dayaco, in sidaa laguu garaaco. xilli walboo xilliga salaada la gaara ayuu u imaanaa. haddaba dhibkaasay leeyihiin dadka taariku salaadiinta ah. rabbi agtiisa qiimo iyo wanaag kuma lehee hala dadaalo. salaadana gadaal ha loo bilaabo arrimooyinka asiibaaya. marka qabriga laga soo baxo mawqifka la keeno xisaabkaa lagu adkeeyaa. rabbi ayaa u carooda, naarta ayaana la geliyaa. maalinta qiyaama waa imaanayaa asagoo daliil ah oo dulaysan. ileen rabbi wuxuu yidhi yawma yukshafu can saaqa wayudcawna ila sujuudi falaa yastatiicuun. maalinta saaqa iyo dhudhunka la faydaayo dhibka iyo rafaadka jira darteed oo dadka sujuudda loogu wacaayo falaa yastatiicuuna, ma awoodi karaan dadkii salaada ka tegey. qaashicatan absaaruhum tarhaquhum dillah, waa khushuucsan yihiin, way dulaysan yihiin, dulli ayaa ka muuqda. waqad kaanuu yudcawna ila sujuud, sujuuddaa loogu wici jiray wahum saalimuun, ayagoo saalimiina oo dadkiiyo nabad qaba ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. xaya cala asalaad ayaa la dhihi jiray, jiifkay dheeraysan jireen. xaya cala asalaad ayaa la dhihi jiray, tijaaradiisuu ku mashquulsanaa. xaya cala asalaad ayaa la dhahay, fiidiida ayuu ag fadhiyey, filinka ayuu fiirsanayay ama ay fiirsanaysay. xaya cala asalaah ayaa la dhahay, maagay la dhex sheekaynaysay. xaya cala asalaah ayaa la dhahay, meelo baas ayay fadhisay, tacsiye ayay fadhisay. xaya cala asalaadaa lalaha aroosay ka heesaysay. maca daalika ma awoodi karaan ayuu yidhi ilaah subxaana wa tacaala. saasaa markaa lagu bixinaa maalinta qiyaamaha.
mawqifka marka la yimaado xisaabtankaa lagu adkeeyaa dhibaato fara badan ayaa la gaarsiinaa mashaakil adag ayuu leeyahay rasuulkaa duceeyey saxaabada oo yidhi allaahuma laa tadac fiina shaqiyan walaa maxruuma mid shaqi ah iyo mid maxruum ahba rabbow dhexdeena ha ooga tegin intaa ka gadaal ayay dhaheen ayuu yidhi atadruuna man ishaqii war ma taqaaniin shaqiga iyo maxruumka yaa waaye ayay dheheen rasuulka ilaahayow qaala taariku salaa midka salaada ka tegay waaye midka salaada ka seexday waaye waa midka aan salaada hagaajinin ugu horayntii ilaah subxaanahu watacaala dhibaato fara badan ayuu ku sallidaa axadka taariku salaad ka ah jahanama waadi ayaa ku yaala waadigaasaa la dhexgeliya waa qofka taariku salaad ka ah waa lagu huriyaa abeesooyin ayaa markaa ku jira iyo xayaad halkii xaya tusqin raqabata albaciir rasiga qoortiisa ayuu la eg yahay dhirarkiisa waxaa loo socdaa hal bil waxaa lagu sallidaa axadka salaada ka tegey wuxuu ku daadin ama uu ku cadaabaa suntiisa jasadkiisa 70 sana uma yataharaa laxmah hilibkiisaa qubanaaya waa lasoo samaynaa haddana taariku salaadka saasaa loo cadaabaa ee dadku waa inay aad iyo aad u dadaalaan rabbigoodna ay aaminaan si ay taariku salaadnimada iyo dhibaatada ay leedahay uga baxaan cuquubaadka ilaah subxaanahu watacaala uu ugu talagalay wax sahlan ma aha aad iyo aad ayay u adag tahay laakiin maanta faan bay noo noqotay maanta waxay noo noqotay ari reer magaalnimo ah salaada qofkii dayaca ayaan la wax la dhehayn qofkii salaada dayacaan qabiilka laga tiraynin qofkii salaada dayacaan la ganaaxaynin qofkii salaada dayacaan la waaninaynin qofkii qaaraanka diidaa qabiilka laga tiraa qofkii qaaraanka diidi waaye ayaa la ganaaxa qofkii qaaraanka diidi waaya loogu hanjabaa inaan ilmaha lala duugaynin qofkii salaada ka taga qaaraanka diida ninka ugu sarreeyaa loo arkaa war sidaa ma ahee qofka salaada tukanaya qofka ugu sarreeya wuu arkaa asagaa waxtar leh asagaa qiimo iyo wanaag leh asagaa sharaf alla agtiisa ku leh subxaanahu watacaala qofka salaada dayca oo habkii loogu talagalay aan u tukanin asagana waxa uu leeyahay cuquubooyin aad iyo aad u badan fawaylun lilmusalliin aladiina hum can salaatihim saahuun waa qofka afdhiga ayaa la yidhi salaada oo rukuucdeeda iyo sujuudeeda aan hagaajinaynin qofka noocaasa ayaa loola jeedaa nin baa masaajidka soo galay waa tukaday rasuulku u yimid wuu salaamay nebiga salaamtuu ka qaaday rasuulku wuxuu dhahay irjic fasalli fa inaka lam tusalli noqo ma tukan soo duko ma tukanine soo duko ee ma tukanin ayuu markaa yidhi intaa ka gadaal 3 mar ayaa ninkii la celceliyey ilaa uu dhahay maxbuudkii xaqnimo kugu soo bixiyaan ku dhaartee saas si aan ahayn oon salaada u wanaajin aqaana male ibar waa la baray marka uu tukanaayo inuu rukuucda iyo sujuudda iyo ictidaalka dhammaan uu ku sugnaado qalbigiisa iyo dhabarkiisa uu ku taago qof wanaagsan uu markaa noqdo qaabkii loogu talagalayna uu markaa u tukado waxaa ka sugnaatay nebiga inuu dhahay tuuganimo waxaa ugu daran xagga xadidda qofka salaadiisa xadaaya soo salaadiisa u xadayaa ayaa la weydiiyey rukuucda iyo sujuudda ayuusan taam yeelaynin ayuu dhahay dadku waa inay aad u dadaalaan salaada ay hagaajiyaan in masaajidada rogga ay tagaan oo ay meesha ku tukadaan nebiga nin intoole ayuu yidhi masaajidka imow haddaadba maqlayso xayi cala asalaax xayi cala alfalaax ilaahayaan ka baryaynaa xayi cala asalaax xayi cala alfalaax nin dhahaaya ayaa nabiga sala allahu calayhi wasalam haddiiba aad maqlayso ayuu yidhi waa inaad markaa xaadirtaa haddaba shaqana waan soo tilmaamay xaaladeedu inay sidaa tahay dadka taariku salaadiinta in loogu talagalay in meesha lagu cadaabo in meesha lagu gubo oo ilaah subxaanahu watacaala wanaag uusan markaa u samaynin marka dadku waa inay aad iyo aad u hagaajiyaan salaada ilaahay ma fiirinayo qofka aan salaadiisa hagaajinin qalbigiisa aan ku sugin rukuucda iyo sujuudda salaada munaafiqiinta waaye ayuu dhahay nebiga waa fadhiisanaa axadka munaafiqa ah qoraxda ayuu sugaa xataa idaa kaanat bayna qarna shaytaan ilaa ay ahaato shaytaan labadiisa geesood dhexdooda waa istaagayaa afka ayuu dhulka ku dhufanaa ama wejiga ayuu 4 mar ku dhufanaa laa yadkuruuna allaha fiiha ilaa qaliila in yar ma ahee wax kale oo rabbi ku xusayo markaa ma jiro abi muuse waxaa laga wariyey rasuulka ayaa tukaday maalin oo asxaabtiisa dujiyey waa fadhiistay nin ayaa soo galay waa istaagay wuu tukaday wuxuu guda galay inuu rukuucaayo afkana uu dhulka dhigay sujuudda isla markiina uu ka soo qaadaayo rasuulku wuxuu dhahay tarawna haada war midkan ma arkaysaan addurkaa ku dhiman lahaa maata calaa kayri millati muxammadin nebi maxamed diintiisa diin aan ahayn ayuu ku dhiman lahaa yanquru salaatahu kamaa yanquru lquraab addam waa afdhigayaa oo dhulka ayuu afka ku garaaca sida quraabka iyo dukaha uu dhiigga u cuno oo kale xaaladaasuu markaa samaynaa sidaa darteed waa in dadku salaada ay hagaajiyaan waxaad arkaysaa salaada sida loo dayacaayo ama loo qafiifinaayo qofka inuu marka dambe jamaacada ka haro ee uu bilaabo inuu gurigiisa markaa ku tukado maalinta noocaasa ayuu cadaabkuu bilaabana suu guriga ugu tukanaayo wuxuu bilaabaa salaadaha gobol ka mida inuu ka tago intaa ka gadaal wuxuu bilaabaa salaadihii oo dhan inuu iska dhaafo iyaakum waljamaaca calaykum biljamaaca korkiina jamaacada ha ahaata buu dhahay nebiga
وإنه قصد جماعة كدلال أو جماعة لازمة ويا جماعة إلهي يجلس أي مركة أعاطي قصد كليوبة في الزوج أي ورابه هنا وإن المرء والجماعة كل حجسة صلاة أكوها جاجسة ليس إلى أكتس خير في وناجسة كرادسة ورجع ولا قلت كذا قاطة الرجع وحي كمسة أرميك وقلت يا رفاق بضن من انطالع يا رسولك أيمي وحوضي منه قائد وناسل ومساجدك أي كحياية من غير البصر أو إن الله يسأرقوا أي يرميهم أنا لحين بان أحي مجال المدينة دوامت هوامت يبع الله ويكب ذيهين سيدا درتت مئيفة صحيسة إلى الجريدين كنت كدو نبي وقف صحي انت كجلات مركو جيتي أي أوعي أيري هل تسمع النداء بالصلاة ما مقليسا قال حابو ضحي أجبوا طي نبي صلى الله عليه وسلم وإن سوء أجيسا ومجال المدينة هوامت يدئي بغاد يضافضا ومن انطالع إما أيام مركان يري إلهي أيام كبرينا إنه حق النواقض يتارك الصلاة بالصلاة إنه إلهي همومي يهديها من طول الضوالي أنا ونقول نغدي بخير كثير ونادك السؤال وبالله توفيق الله سبحانه وتعالى.